heestaas runtii waa hees aniga weliba igu dhacday qiso runtii oo markaan yaraa hooyadii intay xilli iyaga ka mid ah ay maaragtay baadi xoolo doontay oo meel mugdiihoo cidlaa gobolka ugu dhacay jirtaa fanka gudihiisa dhacda is leedahay wallaahi dhacdadaasi markaad ama fanka ka fadhiisato ama meelbaad ku qoran oo fanka horta waa iska xifaaltan badan yahay oo waa iska waxaan ku shaafajiriqiisa badan jacaylku tira weeye tobanka u horeeya balaan yar tilmaamo xasan gantaal barnaamijka ay martay ugu yahay xasan oo soo dhow aad baad mahadsan saaxiib kun iyo kun jeer inta badan Soomaalidu waxay ku yaqaanaan xasan gantaal magacaaga sax xasan cabdi muuse aad iyo aad malanayaa dhageystay daawadayaal badan dhawoodu ku cusub yahay magaca aad iyo aad oo magaca naanaysta meel fog gaadhay aad iyo aad xasanow magaca xasan waxa ku raaca gantaal magaca gantaal sidoo u dhaxay magaca gantaal saaxiib waa magaca naanays ah waxa ay bixinayna saaxiibo ahayn oo xilligii fanka aan soo galayay aan isla soo jaan qaadnay marka gantaal waxay ku salaysnaa iyagu marka ay ku maxaahaday ku buuxinayeen ay uga tusaale jeedeen waxay ahayd waan dadka waxaan ahay markay wax damcaan meesha waxa inay sameeyaan inta badan maaragtay ay ka midho dhaliyaan jecel weliba si degdega markaas saas darteed bay gantaal igu bixiyeen aad iyo aad xasanow intii aad korteed weynaatay ma jirtaa xasuus aan niyadaada ka go'in oo kugu soo noqotay xasuus noloshu way iska badan yihiin laakiin wax dhibaato ahoo imika aan idhaahdo dhib igu soo dhacay oo aanan marna ka maxay ahayd gocashadiisu ay igu badan tahay baa jira runtii ma jiro wax dhibaato ahoo wanaag badan oo ilaahay soo mariyana waa jiraan laakiin wax imika maskaxdayda ku haray oon leeyahay dhibkaas iyo waxaas ma jiraan dunidaan dhib waayinba dhibna wuu jiraa farxadna wuu jiraa intaa xasuustu way ka mid noqon kartaa farxadda aad iyo aad farxad aan kaa go'in oo adiga xasuus ku noqota farxadda aan iga go'in mar walba xasuus ii noqoto runtii waxaa weeyaan halka Nairobi baan anigu fankaygu uu ku dhashay halkan aan ka soo baxay waqti gaaban runtii aan odhan karo bulshada Soomaaliyeed marka meel ay u badan tahay ma aanan maxaaday hore u tagin aan ka ahayn markii aan Muqdisho tagay marka Muqdisho tagay baa marka bulshadii Soomaaliyeed iyo dawlad iyo maxaaday shacab leh ayaa runtii si qaayale oo aad iyo aad qiimo Soomaalinimo ku jirtay soo dhaweysay oo maartay aad qurux badan dareenkaas weligii iga go'in oo aad iyo xasuus wanaagsan igu noqday waan kartay xasanow goormaad fanka ku soo beertay akhilada 2015 bishii February 13keedii waa muddo kooban oo haddana aad ku noqotay geeska Afrika inta badan thank you xasanow ma jirtaa haddii aad nolosha weyn dhacdo aad ka xasuuweyday oo aad dhanka farxadda iyo aad ka xustay ma jirtaa fanka gudihiisa dhacda is leedahay wallaahi dhacdadaasi markaad ama fanka ka fadhiisato ama meelbaad ku qoran oo fanka horta waa iska xifaaltan badan yahay oo waa iska waxaan ku shaafajiriqiisa badan inkastoona fankaygu muddo badan imika oo dee aanan cid badan waxaan ku yidhi aan isku dhacnaa ama aan isyar madax dhaafna aanan gaadhin oo isleeyahay waqti badan baa ku hadhay haddana fanka Soomaaliyeed waxa jirtay mar aan Muqdisho aan tagayo xogaa qabsiga dadka waxaan jeclaa dadku inuu waxaan la kala warwareego ama la tanaasulo ama qof wixiisu wax cad ahaado markaas xogaa dhinaca fanka isku dhac waxa niyar dhexmaray gabar Soomaaliyeed oo fanaanad kale oo nimka magaceeda waxba sheegayn marka isku dhac maahan shakhsiyeed maahan isku dhac faneed buu ahaa marka isku dhaca faneed baa wuxuu keenay bulshadii Soomaaliyeed in hadal hayso xogaa hadal qaado la bumbuuniyo anigana ugu noqday wax ugu baahan markaa igu cusbaaday marka taas ayaduna kamid waxyaabaha waan gartay dhacdada ku xusi karto ma jirtaa inaad kaga daydo fankaaga oo ama role model ku ah oo aad ku daydo ma jiro ma Soomaali mise ma bulshadina Soomaalida fanaaniintii hore fanka Soomaaliyeed runtii fanaan badan oo taageero oo aad u cod macaan oo murti wanaagsan soo gudbiya oo bulshaduna jeceshahay way jiraan oo dee bulshadaasaan kamid ahayn dhageystayaashooda aniguba laakiin inta badan waxaan jeclahay inaan wax kaga daydo fanaaniinta ajnabiga fanaaniinteennii hore fanaan aad isleedahay wuu kuu gaar wuu kuu yahay oo aad meel ku qorato ma jira niyo fanaaniinta weyn hore ee waa bari iyo maartay dadkii fanka Soomaaliyeed hore way jiraan aad u badan yihiin Maxamed Salebaan Tubeec baa kamida Xasan Aas Masar baa kamida Maxamed Mooga kamida Saalax Qaasim baa kamida
dad badan oo fanaaniinta heesahooda aan iskaas u dhageystaa iyo maxay jiraan waan gartay yaas leedahay waa haliyada noloshaada qaybta weynka runtii qofka noloshayda raadqaad iyo af Soomaaliga barashadiisii iyo maxay ahayd kabitaankiisii iyo korintiisii iyo kacakufkaygii in gacan qabashadiisa baan isleeyahay haliyay uu ka yahay oo xusid iyo maxay ahayd ammaan iyo mahadcelin inta uu mudan yahay waa hooyaday waan gartay hees hooyo ama qaado ha maxaa ka mid ah riyadu heestaas runtii waa hees aniga waliba igu dhacday qiso runtii oo markaan yaraa hooyaday intay xilli iyada ka mid ah ay maartay baadi xoolo doontay oo meel mugdi oo cidla gabalka ugu dhacay halkii iyadoo markaa habeenkii oo dhan ku jahawareersanayd ayay qisada ila wadaagtay anigoo waliba fanka ku jira marka qisadaasaan markaa heestaa ka sameeyey heestaariyeeda waxaa ka mid ahaa hooyoy dharaartii dhaxdintii habeenkii dhawaaqii libaaxiyo dhurwaagii cidisii naxdintii dhabta ahayd hadba dhabanahayskii dhimirkay intuu jiro qalbigay ku dhigan tahay heestaas runtii anay si gaaray taabataay oo anaa sameeyey ereyada iyo laxanka hooyoy dharaartii dhaxdintii habeenkii dhawaaqii libaaxiyo dhurwaagii cidisii hooyoy dharaartii dhaxdintii habeenkii dhawaaqii libaaxiyo dhurwaagii cidisii naxdintii dhabta ahayd hadba dhabanahayskii dhimirkay intuu jiro qalbigay ku dhigan tahay dhabta ahayd hadba dhabanahayskii dhimirkay intuu jiro qalbigay ku dhigan tahay dayrdhaxanta celiyo waxaad tahay lafdhabartii dhigtii haysay dunidee hoyo dhaaxanuulow dayrdhaxanta celiyo waxaad tahay lafdhabartii dhigtii haysay dunidee hoyo dhaaxanuulow dareen gaaray leedahay xasanow markaad booqanayso meel lagu dhiban yahay ama xeryaha qaxoontiyada oo kale ama meelaha dadku ku dhiban yihiin labis noocaad jecesha inaad qaato runtii aad baad mahadsantahay waa su-aal xasaasi iyo weliba qiimo leh dadkana wax ka faa'iideeyaan waxaan runtii waan tagay ninka fanka intaan ku jiray hal mar baan tagay dhadhaab xeryaha qaxoontiga Soomaalida inta badan waxa ingiriisku yiraahdaa live where you are meesha joogta la noolow marka bulshada xilliga aad ku dhex jirtay inaad soo ekaysiso waa laga maarmaan ama aad maxay ahaydeen noloshay jiraan aadan dee wax ka qiimo sareeya anu inkastoo aaminsanahay bini'aadamku inuu dee wada siman yahay haddana haddii meesha culimad laga xidho culimad baan qaataa anigu maxaad leedahay haddii lagu yidhaahdo wax dalbo waa lagu siinayaa maxaad dalban lahayd cimri in cimriga lagu dheeray aad iyo aad waa gartay maxaad leedahay cimriga aad ku qaban lahayd dee wax kastoo markaa dunida wax badan baan qaban karaa bini'aadam lahaa sharfay baan ahayo wax badan baan qaban lahaa wax badan baan soo kordhin lahaa aad iyo aad maxaad dareentaa marka hees aad soo saartay waqti badan gelisay ay bulshadu aada uga daba dhacdo ama waa halka afka cusub ee ay ku kala kacdo aad ku kala kacdo runtii wax kasta oo maaragtay qofku uu dadaal soo geliyo wuxuu inta badan sugaa falcelinteeda inta badanna mar kastana maaha inay heesuhu ama wax kasta oo samaysaaba kala kacaan qaar baan kala kicin dad dukaan furta dukaan baa xidhma maxay ahaydeen qaarna way kala sii banaanna kale sii yeeshaan runtii waxaan dareemaa dhiirigelin waxaan dareemaa maxay ahaydeen inaan wixii aan waqtiga soo geliyey sidii aan ka rabay uu noqday waxaan dareemaa inaan maxay ahaydeen ay iyagu yihiin markaa dadka aan ku tiirsanahay
aad uga mahadsan tahay heesaha way fara badan yihiin ma jirtaa hees aad si gaar ah adiga meel ku taalo oo aad dareen gooniya kuula ma jirtaa haa way jirtaa heestaas waxaa sameeyey abwaan dhaga jilc la yidhaahdo oo aad caan uga ah bulshada dhexdeeda oo Nairobi isla reer Nairobi nala ah heestaas qushi baa la yidhahdaa qushi iyo yeelkada baa ka mid ah reedeeda aad iyo oo hees ereyo aad u adag ay ku jiraan oo inta badan oo adag yahay fahankeedu aad iyo aniga heesaha hees baa ay gaar ah waay waan jeclahay waay badan aan dhageystaa marka sida firaaqadan waay heesta taalo waa hees laba qaybood leh qaybta koowaad baan waliba aad u jeclahay aad u maasantahay runtii heestaas walaalo waa heesaha aan ku soo caan baxay oran karo marka koowaad bulshada aad si dhex aad bulshada maartay ugu sii baratay heestaas waa heesta koowaad ee Soomaali ah ee loo sameeyay laba qaybood part 1 iyo part 2 sidaan taariikhda fanka Soomaaliyeed ku hayo heestaas qaybteeda koowaad waxa sameeyay abwaan Mawlid Xasan Curjin la yiraahdo reer Canada waxa la xanka saaray Nabil Bulle waxa muusigana tumay Bulshaawin la yiraahdo reer Soomaaliland marka erayadu waxa oranaysaa jacaylku tira weeye tobanka u horeeya balaan yar tilmaamo talaaba socodkaaga timaha dheerkooda tartiib hadalkaaga tolmoon caqligaaga tashilkoo dhahda tooshka indhahaaga aqoonta tarmaysaa tusaalaha fiican tabtaa kugu raacay saddexna muxuu sii wada saddexna ka tilmaaman tashiga u wanaagsan ya shaqo u tixraaca bartuuga iyo waxa isku dhex dartay tii koobaad marka waa ammaan gabadho aad baan kaga mahadcelinayaa waraysiga iyo sidaad nawaaq bashay aad baan kaga mahadcelinayaa wax fanka ka baxsan oo qabata ma jiro maya way wax qorshaha igu jira oo hor yaa lagu jira laakiin hadda xilligan fanka baa shaqeeya waan gartay xasanow deegaanada Soomaalida intooda badan waad booqatay meelo badan oo kamid ah waad tagtay laakiin meelan weli tigin baa jirta meelo badan baa jira Somaliland iyo Hargeysa kormas leedahay watiisa iyo runtii meelaha aan aadka ugu haminayo bulshada Soomaaliyeed aad iga soo xiriidho waa Hargeysa way aad bay meelaha number 1 kaga shiray ka mid tahay aniga oo qorsheynayaba inaan baxana waxa nagu soo kordhay xaaladan iyo cudurkan magacaabqa coronavirus oo runtii aan rajiyay waqti iyo hoolkii iyo shaqadii dhan baan sameeyayba haddana waxaan qorsheynayaa haddii ay yiraahdo sanadkan imkaan ku jiro intaan u dhamaanin bilaha nagu soo fooda leh inaan Hargeysa gaaro aad bay ugu qorsheysan tahay Hargeysa kaliya ma aha inaan dhul meelaha aad ku jeclahay waxa kamid ah Boorame Hargeysa waa caasimadii dalka laakiin maxay ahaydeen Boorame iyo Burca iyo meelaha kale aad waxa filayaa bulshada Soomaaliyeed ee halka ku nool inay reer Somaliland inay ku sugayaan inay jecel yihiin fanaankooda inay mar u tago xasanow gabagabadii su'aashada ugu dambeysay jacaylka hadii lagu raadsado xiriir ku qaaday maxaad ku qaaday jacaylku waa nolol jacaylku waa macaan jacaylku waa wanaag aad iyo aad baad mahadsantahay xasan adiga mudan walaal aad baad mahadsantahay adiga mudan kun jiraado jacaylku tira weeye tobanka u horeeya balaan yar tilmaamo talaaba socodkaaga timaha dheerkooda